dad waxaa jira hooyooyin umul ah dad waxaa jira waayeelaa isbitaalka ku jiraan wax dhiig u shubo ma haystaan dad waxaa jira xitaa lacagii dhiig ay ku shubo ma haystaan marka anaga waxaa halkan isku wada imaana nin fiidiyo duubto nin wax indheeyo intaasi weyn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo noqosho wanaagsan waa mar kale iyo walaashiin iyo channelkiina YouTube-ka oo qurxinta iyo arrimaha bulshada beeyay walaa xaaladaydu ashma ahayn ma aana soo gelin YouTube-ka waxna ma aana soo dhigin waxaan rabaa inaan horta ka hadlo dhowr arrimood haddase waxaan rabaa inaan ka hadlo muhiimadda ay leedahay in muhiimadda ay leedahay dadka in lala hadlo oo wax wanaagsan loo sheego wiilkii yaraa khayr allaha siiye axmed aadan xaashi inay ugu qorneeda umalayna magaciisa siduu ahaa oo yiri war dadka maxaa inaa fiidiyoyaal duubatiin oo qaraxi meeshu ka dhacay iska duubatiin kaliya uma baahna dad baa istaalada yaalla dad baa u baahan dhiig in loo shubo dad baa u baahan in waxay cunaan la siiyo oo waxay la cunaan haysan sida maanta loogu kaco way arki kartaa waxaa iiga soo baxday bulshadeenu inay u baahan tahay hoggaan wax daacad ah hoggaan daacad ah qofay reality ka tahay yaa reality qofay ka tahay yaa oo aan shilin ku raadsanayn ee aan dan kale ka lahayn ee danta shacabkaa fiirinaya oo wax run ah ka hadlaya inay dadku u baahan yihiin halkaas waxaa iiga soo baxday dadku inay u baahan yihiin wax daacad ah si daacad ah yaa wax u hogaamiya inay u baahan yihiin hadda wiilkaa yar hadalku ku hadlay ee yiri aan kacno waxaa kacay shacabkii oo dhan waxaa kacay madaxdii oo dhan dowladdii oo dhan dadkii oo dhan awal qaraxaa dhacay waxaa laga yaabaa dad dhaawaca istaalada yaalla inaa qoysaskooda waxba ayna heli karin sidii aabbihii xamaaligaha oo yiri $30 la weydiiyo baaritaanka dhiigga ma awoodin istaaladii waa kaceen waa joojiyeen jiifkii lacagtii waa ka daayeen dhiiggii waa ka daayeen baaritaankii waa ka daayeen lacagtii bal u fiirso bal faa'iidada ka war yacni maanta social media la iska ilaalinayaa cadaalad kale ma haysano qof kasta oo Soomaaliya cadaaladiisa waxay ku jirtaa inuu kaamiradan soo hoos fadhiisto meel kale oo iskugu cadaalad falaya iyo ilaahay ka cabsiga waa dhamaad wax ilaahay ka cabsiyay fiir hadda istaaladii oo dhan maanta firiye ka dhigeen halkaa wiil oo hadlay bal ma aqligaaga gadaal uga shaqaysii bal fakir haddii la heli lahaa 10 wiilal iyo gabdho ah oo matataawacnimo ku shaqaynaya ee dadka iyo dalka u kaca oo waxa wanaaga ka hadla maxaa malaynaysaa because maanta social media waxaana qabsaday dad aan xumaan ka sheekaynaya gabar dabadeeda nin ka sheekaynaya gabar qaawana la soo dhigay kuwa ka fal celinaya oo reaction ka bixinaya kuwa qabiil ku tartamaya qabiil maanta oo dhan anaa ka la dheeraysan dhahaya qof ka weyn ma jiro qof kasta adoon weeye ilaahay abuurtay ilaahayna u noqonayo xisaabna ay u dambayso oo xisaabi sugayso qof walba oo xisaaba ku sugaysa marka aniga waxa iiga baxday dadku inay u baahan yihiin dad wanaaga sheega oo kiciya dadka maalinkaas oo kale dadka kiciya dhalinyaro hooyo cid walbaba dadka kiciya bay u baahan tahay dadkeena waxay u baahan yihiin dadka kiciya in la istaago loo istaago arrintan loo kaco shacabka cidna uma maqna shacabkan kan qarxinaya waa dadka iyo maalka inuu dhameeyo muhiimadiisu waa dalka in uu dhameeyo shacabka iyo
inuu iyo maalkaba naf iyo maalba inay israacdo ma ahan diin. qof walbow ogow maanta waxaa nagula qarxinaa ma ahan diin, ma ahan diin, ma ahan diin. waa in dadka la dhameeyo. marka qof walbow haddii aad fakar fiican oo qabiil ka dhan ah oo cay iyo qurun ka dhan ah aa haysid, shacabka waa kuu baahan yahay. meeshaas waxaa ka soo baxaysa dadku inay u baahan yihiin dad hadla oo wanaag sheega inay u baahan yihiin. wiilkaasna waxaan leeyahay axmedah ilaahay ha ku xifdiyo, muqdishoad joogtaa, ilaahay ha ku xifdiyo, wixii sharana ilaahay ha kaa hayo. aad baana ugu mahadsan tahay, waana kuu mahad celinayaa. ilaahayna waxaan kaaga rajaynayaa mid adduun iyo aakhiraba ajarkiisa ilaahay ku siiyo. intaas oo halqiya baad codkaaga u istaagta loogu istaagay. ilaahay khayr ha ku siiyo, ajar iyo xasanaadna allah kaa siiyo. jisaaka allah khayr baan leeyahay. qof walboo dhinacaaga wanaagga ka wada, wanaaggu faa'iidada iyo miruhu u dhalaya maanta arag. wiilkaa yarkaa wanaagga uu ku hadlay way aan u garan laha anagoo waaweyn. ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo. istaallada iyo ganacsatada istaallada furatay oo dadka ku miiranayana sidaasoo kale hala iskaga istaago, hala iskaga celiyo. ambalaas bay soo gateen, ambalaastii bay lacag kaaga dilayaan, istaalkii bay lacag kaaga dilayaan. waray shacabkeena cido uma maqna, waray cidina uma maqna, waray ceelna nooma qodna, waray dadkeena nugul aan hoos u fiirino, aan hoos u fiirino dadkeena nugul. waxaa idinkaga tegayaa wanaaggu miraha uu dhalay fiirso, wanaaggu miraha uu dhalay fiirso. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hooyo Soomaaliyeed umula u baahan, ilmo yara u baahan, cuntaa loo baahan yahay. saddexdaas erayaan isticmaalay shalay. saddexdaas eray heer dadkii wixii gaareen isbitaalada qof kasta oo